maamul goboleedka Puntland oo ah maamulka ugu faca weyn maamulada dalka ka jira jirsadayna 22 sano ayaa ku guuldareystay adeegga caafimaad ee bulshada xaqa ugu lahayd asagoo maamulku qaado canshuur degmo ilaa iyo tuulo ayuu awoodi waayay inuu ku soo celiyo bulshada adeegii guud ahaan tayada isbitaalada ayaa liidata ma jiro isbitaal maamulku leeyahay dhammaan waa barayfad dadka lacaga badan looga qaato misana ayaan ka helin servicekii ay u baahnaayeen dadka reer Puntland ayaa safaro dhaadheer u aada meelo ka baxsan Puntland sida deegaanada Somaliland iyo magaalada Muqdisho Somali Times oo booqatay isbitaalada ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa ayaa ogaatay in dadka ugu badan ka yimaadaan deegaanada Puntland qaarkood oo la hadlay Somali Times ayaa xaqiijiyay inay ka imaadaan tuulooyinka fogfog ee gobolada Puntland ee loo baxshay gaariwaaga dumarka ayaa u dhinta fool ay sababtay isbitaal la'aan wadooyin xumo awgood deegaanada xeebta ku teedsan waxaa laga soo qaadaa laash cidii awooda halka kuwa aan awoodinna ay wajahaan daryeel caafimaad xumo Puntland oo maraysa madaxweynihii shanaad oo ololaha ku soo gala inuu arrintaani wax ka qabanayo ayaa markuu uu guuleysto aan xil iska saarin dadka uu madaxda u yahay ee tabaalaysan xogta kale oo ay Somali Times helayso ayaa sheegaysa in dawladda isku dayay inay isbitaalada ka furaan Puntland oo uu Turkigu ku jiro uu diiday madaxweyne Dani asaga oo ka fulinaya amarka dawladda Imaaraadka taas bedelkeedana uu ku qaatay lacag malaayiin dollar maamulka Puntland ayaa gabi ahaanba ku fashilmay adeegii bulshada sida caafimaadka biyaha korontada asagoo canshuur xad dhaaf ah ka qaadayay muddo rubac qarni ah dadkaasi tabaalaysan ee masaakiinta ah